Hadii Hackers soo galaan system si ay malenaysa in malwares-koda uga dhigan kuwo markasta systemkasi garanayo oo u baahnay in si manual ah loo gareyo. Qaybtenan afraad ee Taxanahena U Baro dhigan professional ah aan ku soo qadanayna Crontab. Waa maxay Crontab? Si loo adeegsada maxayse tahay muhimaddiisu. Muuqaalkeena maanta aan soo qadanayna soo dhawaad dhalinyaro. Haddii aad ku cusub tahay cybersecurity-ga iyo ethical hacking-ka laga yaabo inaad hore u maqal Crontab. marka la sameeyo hacking ee system laga gareyo waxaynu u baahanahay in shaqooyin badan sida rangareynta malwares-ka, furista reversals-ka, ama reset gareynta passwords-ka in la inoogu qabto si automatic ah oo ayna markasta inagu sameyn. taasi si ay nagu suurto gashana waxaynu adeegsanaynaa commands caadiyan loogu talagalay in lagu rangareeyo shaqooyinka systemkeenan xilli cayiman oo schedule ah, yacni waqti cayiman aynu ku xidhaynaa oo timed ah. intaasi misla fahanay. haddaba haddii si khaldan loo adeegsado commandskan Crontab ama Cronjobska waxay noqon karaan Hadii Hackers u adeegsan karaan inay systemkasi ku dhex jiraan muddo dheer laga yaabee xitaa iyadoo la isdhahay malwareska iyo wixiiba waa laga remove gareeyay in la arko in weli hackers ay haystaan access. haddaba Cron waxaad kaliya u sheegaysaa waxaad rabto in rangareeyo ee command ah iyo xilliga rabto in rangareeyo shaqadaasi. haddii rabno inuu aragno shaqooyinka inoogu jira schedule-ka waxaynu kaliya qoraynaa Crontab L. haddii uu ku saaro no Crontab waa iska caadi oo wax shaqo hore ugu maad schedule gareyn, balse ka taxadir haddii ku saabaxaan shaqooyin aan aqoonsan. si aad wax uga bedesho Crontab iska jira ama aad ku darto mid cusub waxaad qoraysaa Crontab E kadibna soo gal tagasi editor-ka. aynu eegna haddaba tusaalahan line kasta wuxuu qoran yahay sidaan ah 5 asterisks ama xidigahan yaryar iyo command-ka la rangareynayo. waxayna 5 asterisks u taagan yihiin minuteska, saacadaha, maalinta bisha sida la dhahdo 12 bisha, waxaa ku xiga bisha sida ay dhahdo December iyo maalinta rabto inaad gelin karto sida Khamiis oo kale. asterisks-kani waxay noo haynayaan waqtiga ay rabno inaan rangareyno command-kan. sida tusaalaha inooga muuqatana backup ayaa laga qaadayaa user kasta 5 subaxnimo ee hal mar week kasta. haddaba tusaalahaasi waa marka loo adeegsanayo Crontabska sida habboon ee saxda ah. bal aynu sameyno tusaale yar oo kooban. waxaynu sameynaa backdoor kadibna waxaan siinaynaa permission-ka ah execute-ka iyo la rangareyn karo waayo default permission-kii muxuu ahaa in file kasta oo cusub uusan lahayn permission-ka rangareynta. okay, kadibna aynu sameyno Crontab waxaynu odhanaynaa 2 minute ee kastaba soo rangaree file-kan. timerkaasi ayaynu ku xidhaynaa. okay, sidaas oo kale ayaa loo rangareyn karaa commands-ka ama fileska malicious-ka ah. haddaba si aad joojiso Crontab waxaad qoraysaa Crontab R. tekniigan Crontab waa mid aad caan u ah sababta ka dhigaysa mid la jecel yahayna waa inuu yahay mid aamusan oo aan si fudud loogu baraarugi karin, mid ku xiran time oo aad xilligaa rabto ka dhigi karto inuu shaqeeyo, iyo inuu yahay mid aan u baahnayn network sidoo kalena awood badan. muuqaalkeena maanta intaas ay ku egyahay. ha ilaawin inaad samayso practice iyo ku celin joogto ah. hana ilaawin inaad adeegsato command-kii hel si aad wax badan uga sii baratid Crontabska. lana wadaag barnaamijkeenan asxaabtaada. mahadsanid.